xubin ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka daraawiishta ayaa soo gaaray degmada Elleray bariga gobolka Galgaduud halkaas oo ay ka bilaabayaan howlo lagu xoojinayo sugidda amniga iyo adkeynta laamaha ammaanka ee degmada. ciidankan oo ah kuwa si gaar ah u tababaran isla markaana loo xil saaray inay ka qayb noqdaan sugidda amniga baraha kontaroolada laga soo galo degmadan Elleray xarunta saldhigga booliiska iyo xarumaha dowladda si loo adkeeyo amniga guud loona xaqiijiyo badqabka shacabka iyo goobaha muhiimka ah ee adeegyada dowladda. Elleray ayaa muddo ku dhow 5 sano ahayd degmad difaaceed ay gacanta ku hayeen geesiyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka deegaanka iyo maamulka degmada kuwaas oo ka shaqeynayay sugidda amniga iyo ka hortagga weerarada kooxaha argagixisada ah ee lidka ku ah nabadda deegaanka. ciidanka daraawiishta ayaa markan soo gaaray degmada waxaana si diiran u soo dhaweeyay maamulka degmada Elleray, saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. mas'uuliyiinta ee saraakiisha soo dhaweeyay waxaa ka mid ah gaashaan la dhexe Abdi Xuseen Alug, Dhamma Cabbaas Ciise Maxamuud, taliyaha ururka 2 Commandos-ka Gorgor, gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Elleray Saciid Feefle iyo kusimaha taliyaha saldhigga degmada Elleray ee bariga gobolka Galgaduud. ciidankan daraawiishta ah ee soo gaaray degmada Elleray waxaa hogaaminaya Xidigle Maxamuud Carab Cismaan, waxaana halkaas si gaar ah ugu soo dhaweeyay Xidigle Axmed Xasan Cadaawe Axmed Najaad, taliyaha xigeenka booliiska degmada Elleray ahna kusimaha taliyaha saldhigga degmadaas. bismillahirrahmanirrahiim. aad u faraxsanahay in degmada Elleray ay maanta soo gaareen ciidanka booliiska daraawiishta booliiska Soomaaliyeed. aad ugu faraxsanahay waana soo gaareen cutubyo ka tirsan. farxadeen inoo tahay in muddana waan ku taameeyay in imaad doonaan. waxaan filayaa in maarkino hadafyada taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo fikirkii taladiisa inay ku imaadeen. waana soo dhaweynaynaa, soo dhawaada leeyahay. booliisku waa ilaaliyaha nafta iyo maalka. booliiskuna waxaa waay meel walba waxaa astaan nabadeed u taagan yahay. booliisku meeluusan booliis joogin waxay u dhigmataa meel colaadeed inay tahay. Elleray waxay ka mid noqotay meelasha ciidanka booliisku ku howlgeli jiray, haddana dib ugu soo noqdeen khaasatan fadhiyada bannaan ee daraawiishta qayb ka mid ah inay maanta nala joogaan. aad ugu faraxsanahay. imaatinka ciidankan ayaana qayb ka ah qorshaha lagu xoojinayo amniga degmada iyadoona mudnaanta la siinayo ilaalinta xarumaha dowladda, goobaha muhiimka iyo baraha laga soo gala degmada iyo badqabka bulshada si shacabka loogu xaqiijiyo amni iyo kala dambeyn. maamulka degmada iyo saraakiisha ciidanka ayaa sidoo kale adkeeya muhiimadda ay leedahay iskaashiga ka dhexeeya ciidamada qalabka sida iyo bulshada maamulka degmada si loo dhiso amni waara iyo hay'ado dowladeed oo si hufan uga shaqeeya adeegyada bulshada. degmada Elleray waxa ay ka mid tahay degmooyinka muhiimka u ah gobolka Galgaduud, waxaana xoojinta amnigeeda loo arkaa tallaabo muhiim u ah shacabka ku nool degmada iyo dib u dhiska hay'adaha dowladda. balse imaatinka daraawiishta booliiska ayaa sidoo kale ku soo aadaysa xilli bilo ka hor halkan uu soo gaaray taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Generaal Asad Cusmaan Cabdullaahi Diyaano, isagoo ballan qaaday halkan inay soo gaari doonaan cutubyo ka tirsan booliiska isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya ay wado qorshayaal lagu xoojinayo howlaha amniga, diyaarinta guluf dagaal oo ka dhana kooxda argagixisada iyadoo la filayo in dadaaladaasi ay qayb ka noqdaan geesiyada booliiska. gulufka lagu doonayo in lagu ciribtiro kooxaha argagixisada ay weli ku dhuumaaleysanayo deegaanada fogfog si loo ballaariyo goobaha muhiimka u ah dowladda iyo shacabka si ay wadajir ugu noolaadaan halkaas. Elleray maanta waxay wajahaysaa marxalad cusub oo amni iyo dowlad dhis ah iyadoo xoojinta booliiska iyo iskaashiga ciidamada kala duwan ee muhiim u noqon karto in shacabka degmada loo abuuro jawi amni ah oo waara. Maxamed Aljaraad ee telefishinka qaranka bariga gobolka Galgaduud.